shaqada wadadu waxay u socotaa si runtii xawli ah qaybihii la soo dhisay oo wax laga soo qabtay oo sida Mareer iyo Garaacad iyo Buubi iyo Bixoog qaybahaas waa horey looga soo shaqeeyay qaybihii kale oo ay shaqadu ka socotay oo bariga Gaalkacyo oo gacana fale ilaa Gaalkacyo shaqadeedu way socotaa godad iyo gacana fale ayaa hadda gabagaba ah dhamaystirkoodii kadibna waxaa qorshuhu yahay godad iyo jeexdin ilaa Gaalkacyo ayadana in la isku soo xiro qaybta labaad qaybta Gaalkacyo galbeedkeeda laga bilaabo Gaalkacyo ilaa iyo meesha la yiraahdo dhagaxay cadde eeriyadeeda ayadana halkaas shaqo fiican baa ka socota ilaa 20 kilomitir dhul ah ayaa laga shaqeeyay oo runtii hadda si fiican gaadiidku maraa arkaawdana lagu bilaabay bayskiina dada arkaawad ciidii sare laga qaaday la garaacay la rusheeyay kadibna arkaawada lagu soo bilaabay qaybta waxa ka shaqeynaysaa hay'adda BHA hay'adda wadooyinka Puntland shaqadaas marka waxay u socotaa si runtii fiican kaliya waxaan u baahanahay waxa weeye oo ugu muhiimsan waa dhaqaale in loo helo wadadan markii hore waxay ku timid amaba ay ahayd ama waligeed bay ahayd isku tashi bulsho ilaa laga soo bilaabo 2001 gudiyo kala duwan ayaa ka soo shaqeeyay oo hadba qayb ku daray annaga qaybtayadan hadda gudigan dambe uu xilsaaran yahay oo sanadkaana runtii shaqo fiican baan ka qabanay waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo qayb ka qaadatay shaqada socota oo ay ugu horeeyaan aasaasiyaasha shirkadda wadaagsan iyo dawladda Puntland oo runtii qaybta labaad ayana qaadanaysay oo qalabkeedii haday tahay iyo haday tahay inay shidaalka iyo ranikoosay qayb ka geystaan labadaba iyadana waa mahadcelinaynaa wadadan wadaagsan la yiraahdo wadaagsan corridor oo xeebta ka imanaysa iyo dekedda Garaacad ilaa Galdogob haddana uga sii gudbaysa dhul kale oo aad u weyn intaasoo dhan ay dadkii degan yihiin noloshoodiina wax weyn ka bedelaysa haday tahay dadka magaalooyinka tagaya ama caafimaad u doonanaya ama tijaaro iyo ganacsi u doonanaya ama safarka kale tahay dhulkii awal maristiisu ay adkayd inuu noqonayo mid hadda dadku ay mari karaan in noqdo dadaalka hadda gudigan uu gacanta ku hayo waa midkaas oo iska ka hooseeya laami inay dhisaan ka hooseeya inay wada yani highway ka dhigaan laakiin dadaalkoodu uu yahay wada la mari karo inay ka dhigaan سأدرتي waxaan ku boorinayaa dadka muslimiinta walaalaha meel kasta ay joogaan wadada in laga qayb qaato qof walibana wuxuu awoodo uu kaga qayb qaato wax yar iyo wax weyn ajrigana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaga xisaabtamo ihtisaab uu ku bixiyo wadadu ma aha meel ganacsi oo lacag laga helayo oo qof ama inta cid dhisato lacag helaysa ma aha waa meel mushtaraka oo ummadda ka dhaxaysa oo qof hadhow ka reeban maritaankeeda iyo inuu ka faa'iideysto qof ka reeban aanu jirin dadka muslimiinta Soomaaliyeed dhan buu dhaxaysa inta isku xirto iyo inta u baahata inta soo dhan qofkaasna ajri buu ku leeyahay Ilaahayna subhanahu wa ta'ala oo ka ajir barinayo dadka qurbaha jooga iyo dadka gudaha jooga laftigoodaba waxaan ku soo jeedinayaa qof dollar ba ugu yar 10,000 ba ugu badnaan karta ka badan qofkii ku dari kara inta u dhaxaysa qof waliba wixii uu ku bixiyo inta aad heli kartid حتى انت شاها اتكو عبتي مالنتي شاها هلك دولار او meelaha hadda iska badanba laba koob shaaha maalintii inta iska diisa daawada ku bixisid hadda $10 ku bixisid hadda $100 ku bixisid hadda $500 ku bixisid inta soo dhan waxa weeyaan way isu tagaysaa waxayna noqonaysaa wax weyn oo wadadii meel weyn uga soo baxa imanka qorshe u sameeyeen qorshe runtii aan aad ugu qancay oo dadaal badan ay soo sameeyeen in badan ay ku soo qabteen inta soo hadhayna
ay doonayaan inay maaragtay ay wixii xoogga saaraan runtii wixii lagu dadaalo waxbaa ka hirgala hadda inta ay sameeyeen waad arkaysaan waa dadaal bay kusoo sameeyeen inta dhimanna dadka waxaa muslimiinta walaalaha inaynu kala qayb qaadanno waa laynaga rabaa ashkhaas maanta inay yidhaahdaan waan hagaajinaynaana waxa keenahaya waan garan karnaayo waxa weeyaan waa ciddii u qumi lahayd oo dowladdii dhexe ahayd baa meesha ka maqan in marka mujtamacii iyagu isu tashadaan waa wax meesha ku jira oo wadooyinkii la hagaajiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiix muslim waxa uu yidhi ra'aytu rajulan yataqallabu fi ljanna waxaan arkay nin jannada ku gadgadoomahaya sababta ninkaa jannada uu ugu gadgadoomayo uu ku galay waxay ahayd geed dadka dhibaysay ama laan dadka wadadooda dhibaysay oo uu ka jaray bay ahayd oo markuu laantaa arkay buu yidhi maxaan ku idhaahdaa kaa tegi maayo dib dambana qof muslima u dhibi maysid wadadaa marka qofka dadka dhibaysa dee gaadhigan marahaya oo bini aadamku uu wato way dhibaysaa dhagaxii waxalla wixii mashaakilaho wax laga zuuliya ayaa soo gelaya khayrkaas iyo wanaagga waxaan dhammaan marka dadka ugu yeeraynaa walaalaha ah gaar ahaan wadadaasi mujtamaca ay dhex marayso oo laga soo bilaabo garacad ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa goldogob ah iyo guud ahaan dadka soomaalida ah oo khayrka iyo wanaagga jecel oo ahlu khayrka ah oo ahlu ixsaanka iyo wanaagga ah oo horumarka iyo khayrka iyo wanaagga jecel waxaan leenahay walaalayaalow wadadaas dhismaheeda aan ka wada qayb qaadanno wax alla wixii aan ku taageeri karno innaga oo niyadeenna hagaajinayna oo sadaqo u niyoonayna aynu ku bixinna insha allahu tacaala taas baan dadka dibadda iyo kuwa gudahaba dhammaantood ugu yeeraynaa gaar ahaan bulshadan tirada badan oo gaadiidka wadata ayaga laftoodu way uga sii xigaan oo waxa weeyaan gaadiidku waa waxa wadada loo hagaajinayo maamulka laftiisa waxaa la rabaa hadduunan wax kale u keenaynin hantidan gaadiidka laga qaadayo inuu wadada wax uga qoondeeyo oo wax uga jaray iyada lafteeda waa la rabaa waxaa loo baahan yahay in aynu arintaa ka wada qayb qaadanno insha allahu tacaala allah idin barakeeyo wajazaakum allahu khayran khayrkaas sadaqo weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iimaanka markuu ka waramayey waxa uu sheegay inuu dhowr iyo 60 qaybood yahay waxa weeyaan laa ilaaha ila allahu iyo imaatatu ladaa can ariiq labadaas ayaa u dhaxeeya oo waxa weeyaan shahaadada iyo tawxiidkuna way ugu sareysaa wadooyinka oo la hagaajiyana ayadana way ugu hooseysaa inta ka dhaxaysana waa acmaalu khayr